الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaabihi أجمعين. waa dersigii 11aad kamid ahaa duruusta taqriib التadmuriya. waxaynu ku dhex jirnay qaacidadii odhanaysay صفaaت الlahi subحaanaه وataعaalى wma أخبر اllah bه can nafsih. wixii ilaahay naftiisa inooga sheegay macluum lana min jihaة الmacnى wamajhuul lana min jihaة الkayfiya. waa mid aynu garanayno macnihiisa, kayfiyadiisa iyo qaabkiisana aynu jaahiliin ka nahay. waxaynu ku dhex jirnay dalaalة alcaql calى fahmi macaani ma akhbar allahu tacaala bihi can nafsi. caqligu inuu tusiyey naqliga dabadi in wuxuu ilaahay subxaana watacaala naftiisa inooga sheegay macnihiisu uu yahay mid la fahmayo o la garan karo. laba weji ayuu caqligu inagu tusinayaa buu yihi. wejiga labaad ayaynu ku dhex jirnay bal aynu dhamaynay. wuxuu dersigeenu ka bilaabmayaa shubaho ay daliishadeen kuwa leh صفaaت الlahi subحaanaه wataعaalى laa yaclamu macnaaha ilا اllah. صifaatka ilaahay macnaha ay leedahay ilaahay mooyaane cid kale garan mayso. wa haؤulaaءi hm اlmufawida. kuwaasi waa kuwa la idhaahdo mufawidada. marka waxaa muhima inaynu fahmno maqaalaة الtafwiid. maqaalaadka kaleo dhan aynu ka hadalnay, maqaaladaasi way noo harhsanayd, maqaalaة الtafwiid. maqaaladani alqaab bay ku leedahay fi kutub الاctiqaad, magacyo ayay ku leedahay. magaca u caansani waa in la idhaahdo maqaalaة الtafwiid, caqiidada tafwiidka. waxaa ka mida magacyada ay maqaaladani leedahay in la idhaahdo maqaalaة الtajhiil. maqaaladda markaa dadka jahli geyeysiineysa oo nuxurkeedu uu yahay ana kula الnaas jaahiluuna can صifaat اllahi subxaanaه wataعalى can macaani صifaat illah. dadka oo dham inay jahli kaga sugan yihiin صifaatka ilaahay macnahooda. waxaana inta badan maqaalada magaca u isticmaala maqaalaة الtajhiil sheikh اiسlاam ibnu teymiya raximah اllahu taعaalى iyo ibn اlqayim. iyo magaca saddexaad ee maqaaladani ay leedahay waa maqaalaة التaأwiil اlijmaali. maqaalaة التaأwiil alijmaali. taawiilka ayaa laba ah. التaأwiil الtafsiili oo ah sifo kaste naska ku soo arooray in la idhaahdo ظaahiruhu waa غayru muraad wayucayana lahu bacda dalika macnan. dabeetana intaa dabadeedna macno loo cayimo kii daahirkiisa uu tusinaya aan ahayn. kaasi waa taawiil tafsiili, waana taawiilu ahli اkalaam, taawiilka mutakalimiinta min almulafiqati wagayrihim. taawiilka nooca labaad waa ataawiil اlijmaali, oo naskii waxaa la odhanayaa ظaahiruhu waa غayru muraad lakin laa yucayanu lahu macnan, lakin macno loo cayimi maayo. marka taawiil اlijmaali waa madhab اlmufawida, yasrifuuna lafظa can ظaahirihi. oo lafdigii صifaatka ilaahay ku saabsanaa horta daahirkiisa waa ka leexinaya ظaahir waa غayru muraad bay odhanayaan. walaa yuxadiduuna lahu macnan, lakin maxay kaga duwan yihiin mutakalimiinta? laa yuxadiduuna lahu macnan, macno u xadidi maayaan. waxay leeyihiin macnahan daahirkiisu uu tusinayaa waa غayru muraad, waa tashbiih iyo tamhiil.
wاlmacna almuraad bihi laa yaclamuhu ila اllah macnaha loola jeedana ilahay ubaa garanaya ala kuwa kale ona annagaa garanayn oo iyad qudraa loola jeeda nicmaa loola jeeda waxay isku waafaqsan yihiin ana ظaahira nusuusi الصifaati غayru muraad وana ظaahiraha tamhiil الtashbiih ay isku waafaqsan yihiin muتakalimiinta iyo mufawidadu taa way isku waafaqsan yihin maxay isku khilaafsan yihiin almutakalimuun yucayinuuna liلnasi macna غayr اlmacna aladi dala calayhi ظaahiruhu naska waxay u cayimayaan macnihii daahirkiisa uu tusiyey midaan ahayn wاlmufawidatu laa yucayinuuna lahu macna macno uma cayimayaan wallahu aclam bilmuraadi bihi waxaa loola jeeda ilah unbaa garanay bay leeyihin walaa yaclamu almacna almuraad bihi ila اllah macnaha loola jeeda ilahay maan cid kale garan mayso ka halkaa iska ilaala ku khaldamin mufawidadu ma laha laysa lisifaat اllahi subxaana wa tacaala macaani sifaatka ilaahay macna male ma laha lakin maxay leeyihiin lahaa macna walakin hada اlmacna laa yaclamuhu ila اllah macna way leedahay alyad macnaha looga jeeda alwajh macnaha looga jeeda alqudra macnaha looga jeeda aliraada alsamc walbasar walkalaam walmaxaba walraxma walixsaan walgadb walintiqaam lakin hada almacna laa yaclamuhu ila اllah hunaaka farqu beyna masalatayn laba masalo farqi baa udhexeeya almasalaة اlأulى inkaaru asli اlmacna oo in la ihahdo macnaba ma leh inkaaru wujuudi almacna macna inuu jiraba in la diido oo la hahdo waa bimansilati xuruuf اlhijaa bal yadaahu mabsuutataan waxay lamid tahay alif ba ta tha in la idhaah iyo inkaar kowni اlmacnaa macluuma lana iyo in la diido macnihii inaynu garanayno laba masley keliya waxaa ku leeyahy macno way leedahay lakin macnihii laa yaclamuhu ila اllah marka aslulmacnaa ma diidana marka taa waa inaad kala fahamto haddii kale mazaq baad u gelaysaa mufawidada haddaad u fahamto inay diidayaan aslulmacna ay leeyihin macnaba ma leh macno way leedahay bay leeyihiin lakin hada almacna laa yaclamuhu ila اllah saasay leeyihin mufawidadu marka maqaaladaa saddexdaa laqabba way leedahay wa ashharu hadihi اlalqaab waa laqabkaa inay tahay maqaalaة tafwiid ama madhab tafwiid marka atafwiid waa maxay xaqiiqadiisu atafwiid waa alqowl biana macaani صifaat اlilaahiya غayru macluumaة lلnaas alqowl biana macaani صifaat اlilaahiya غayru macluumaة lلnaas waa ictiqaadka odhanaya sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala loo nisbeeyey loo tiiriyey macnahooda dadku garan maayaan manaa macno way leeyihiin lakin macnahooda dadku ma garanayaan laa yaclamu macnaha ila اllah macnaheeda ilaahay mooyaane cid kale garan mayso wa hadihi almaqaala ikhtalafa الnaasu fi taariikhi nashأatiha maqaaladani goorma ayay bilaabantay waman awalu man qaala biha waayo ciddii u horeysay ee ictiqaadka noocaasiya ku hadasha culimada qaar waxay hahdaan abu mansuur ilmaturidi baa ah awalu man qaala bihadihi اlmaqaala laakiin naska ay ka soo naqliyaan ee u deliishadaan in maqaalaة tafwiid uu ku tegey oo uu yihi waa nas uu ixtimaal ku jiro sariix maaha waladii yabdu wallahu aclam ana hadihi اlmaqaala nashaأat fi bidaayaة اlqarni الraabic alhijri waxay u muuqataa maqaaladani inay soo ifbaxday oo ay bilaabantay qarnigii afraad ee hijrada inay bilaabantay waxyaabaha taa tusinaya waxaa ka mid ah ibnu fawrak oo ka mida culimadii waktigaa nooleyd ayaa maqaaladan aada u naqdiyey sida xagga dambe insha allahu tacaala aynu ku arki doono taasi waa mid arin labaad
لا توجد طائفة تتبنى هذه المقالة ma jirto koox soo taagan oo maqaaladani inay caqiidadooda diintooda tahay sheeganaysa koox la yaqaan oo odhanaya madhabuna fi sifaat illaahi atafwiid madhabka iyagu baabu sifaat marka la joogo waa tafwiid cid odhanaysa lama hayo haddaa maqaaladan yaa loo nisbeynaya ma cidlo iska taalla maqaaladan waxaa laga dhex helayaa في أقوال المتأخرين من أصحاب مدرسة التلفيق وعدة أبدا مقالة كهذا الشاه ومتأخرين كودن بي تاريخ أهان وكم إذا ما تريد يد إيو إشعارية دي كم إذا وبعضهم لما تحيروا في التأويل قالوا بالتفويض قاركود مركا يكوريرين تأويلك inaanu soconahayn taayirkiisu aanu riixmahayn ay arkeen ayay u noqdeen maqaalatu atafwiid kaljuwayni kitaabkiisa al-irshaad i'tiqaadka uu ka qoray iyo kutubtiisa kalaba yuqarriru fiiha maqaalat at-ta'wiil in dhaahiru nusuus sifaat yahay ghayru muraad وعيمين معناها نص كسته أما صفة كسته لولا تشيدو أيو كتغريري لكن تحير ثم رجع إلى التفويض وراء يريد تروحون لغة التفويض وكذلك الغزالي شيخ الغزالي والشهرستاني وغير واحد من الأشعرية مركي تأويل يكون وراء تفويض بين نقطين ونصبوا هذه المقالة إلى أئمة السلف ومذهب السلف النقطة باستشهادين لكنهم ضلوا الطريق وده صح ده هيد بيكلمين ومذهب السلف با waxay u qaateen inuu ahaa tafwiid sifaat illah la sifaatka ilaahay nusuusta ku soo aroortay macnaha ay tusinaysaa waa غير muraad wa dhaahiruha wa tamthiil wa tashbiih wa ta'yin المعنى المراد بها غير ممكن إن لا عيمه معناها لولا jeedana ومدان suurtoobay madhab السلف inuu ka yahay bay u qaateen وأنا نقدين دونا تاس وأصحاب مقالة التفويض مذهب كان أدلة يودي ليشدين وحكمي ده إنه يهي مذهب السلف نقول لو صار نقليان أي عسكريان مذهب السلف إنه ها التفويض تاني إن شاء الله تعالى وكتشوها دونا مقالة سببتيد واضح ما صاب نشأة هذه المقالة سببتيد وحوية علماء الكلام قالوا بأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد ثم عينوا المعنى المراد بزعمهم علماء الكلام waxay sheegteen nusuusta sifaatka daahirkeedu inuu yahay غير مراد oo daahirkeeda maxay ka fahmeen soo hor u soo aragnay التمثيل والتشبيه أي كفاهمين كدبنا وحي وعيمان معناه وعيمان صوما كي ظاهر كده عن أهين ثم استدموا بأقوال ثابتة عن السلف صريحة في إثبات الصفات وإجراء نصوصها على ظاهرها سيدا أمريكا إلى هذا وحا كهرتمي inay arkeen nusuus salafka laga soo wariyay oo saxiix oo ku cad isbaat sifaatka sugistooda iyo nusuusta sifaatka ilaahay ka hadlaysa in daahirkeeda lagu socodsiiyo daahirkeeduna inaanu tamthiil ahayn uu yahay isbaatu هذه الصفات التي دلت عليها على الوجه اللائق بالله nusuusta sifaatka tusay in ilaahay loo sugo oo sida ilaahay munaasibka ku ah عظمتيس هي كمال كيسنا الله قصه تاسا كهرتين كم حيلان يجي تاويل بيلين السلف كينا waxay arkeen مئات النصوص oo tusinaysa
inay nusuus sifaat daahirkeeda ku socodsiiyeen sifaatkaa ku jirana ilaahay u sugeen fanasabuu ilayhim atafwiid si ay mushkiladaasi uga baxaan waxay yidhahdeen madhab salaf wuxuu ahaa atafwiid buu ahaa bay yidhaahdeen ayib waxaan loo yaqaano maqaala tafwiid waa qaa'imat calaa ruknayn laba rukun bay maqaaladan ama madhabkan uu ku taagan yahay الركن الأول waxa weeye أن ظاهر صفاaت اللahi يuجiب التشhبيه أن ظاaهiرa صفاaت اللahi يuجiب التشhبيه oo taa waxay ku waafaqsan yihiin mucaطiladii kale ayay ku waafaqsan yihiin nusuusta صفaatka ilaahay ka waramaysa haddii ظaahirkeeda loo daayo taasi waxay keensanaysaa in ilaahay lagu shabaho makhluuqaadka وفهموا من صفاaت اللh أنها تماثل صفاaت المkخلوقين صفاaتka ilah waxay ka fahmeen inay la mid tahay صفاaتka مkخلوqa kaas waa ka ركنka labaad أن معاaني صفاaت اللahi مجهuلة لنا ولا يمكن تacyiiنها أن معاaني صفاaت اللahi مجهuلة لنا ولا يمكن تacyiiنها ilaahay sifaadkiisa macnahoodu waa midaynaan garanahayn bu yidhahay inaynu macno u cayinaana maba suurtowdaba marka waxaynu samayneynaa bay yidhaahdeen nufawidu macnaaha ilى اllah macno waa leedahay lakiin macni inau garan mayno cayimistiisuna inuma suurtowdo ilahay baynu daynaa allahu aclam bimacnaaha baynu odhan macnaheeda ilahay ubaa garanaya oo fasiri mayno bidikri macnaha macnaheeda inaynu sheegno ku fasiri mayno markaasaynu hore u sheegnay laa yunkiruuna an yakuuna laha macnan sifaadka ilahay ay macno leeyihiin ma diidayaan walaakin liyaquuluun laa yumkin idraaku macnaha garashadiisu inooma suurtooda bay leeyihin wakamaa qulnaa hunaaka farqu bayna nafyi asli اlmacna wa bayna inkaari idraaki اlmacna in macnaha asalkiisaba la dido lahaa macnaba ma leh waa bimathaabati xuruuf اlhijaa iyo in la idhaahdo macno waa leede macnahaasi waa inaan garan karayn oo cilmigeena ka gaaban waa laba kala duwan weeye nacam maqaalaة التafwiid alasl اladي qaamat عalayhi huwa اlasl اladي qaamat عalayhi maqaalaة الtalfiiq الأصل الذي قامت عليه مقالة التفويض هو الأصل الذي قامت عليه مقالة أهل التلفيق أصلka ay ku qumtay مaqaalada تفويidku ay ku taagan tahay haddii la buriyo ay bureyso waa aصلka ay ku qumtay مaqاalaة التلفيق ana waa isku asal oo de inaga hore u sheegnay usuusha ay ku qumtay waxa weeyaan maqaalaة الtalfiiq daliil الxuduuث iyo daliilu الtarkiib iyo daliil الtajsiim iyo waxyaabahaasay ku qumaysa soo ma la haahdo haddii sifaadka ilaahay loo sugo waxaa ka dhalanaya inuu yahay maxalu lilxawaadiث wama kana maxala lilxawaadiث fahuwa makhluuq haddii ilaahay sifaadka loo sugo waxaa ka dhalanaya inuu yahay murakab min أجزاء wma kana murakaba min أجزاء yumkin infisaalu bacضi أجزاءi can bacضi waxaa markaa أجزاء ka koobanna أجزاadaasi inay kala soocanto oo ay kala godo ayaa suurtooda wayakuunu muftaqira ilayha أجزاadana waa u baahan yahi iyo daliil التajsiim iyo إثbاat الصفاat ystalzim التajsiim وma kana جismا ma kana mawصuفا fahuwa جism wma kana جismا yumaثilu أجساam wixii صifali waa jism jismina hadda ilahay jismi usugna أجsaamti kalu la mid noqonaya marka usuusha noocaasa adilada noocaasa ee adila caqliya ah baciida can اlwaxy ee maqaalaةu ahli الtalfiiq ay ku qumtae horena aynu sheegnay inu naqdinay ayaa maqaalaةu ahli tafwiidna lafteeduna ay ku qumtay
marka waa isku usuul ila waxay isku waafaqsan yihiin على أن ظاهر نصوص صفات التشبيه تاسي اسكو وافقسين النصوص الصفات كظاهر كيدو يأي تشبيه وأن التشبيه لا يليق بالله بل يجب التنزيه عنه تشبيهنا إنا الولاية لا يقواهين واجب تاي إلهي لقنا الزهو لقهف محا اسكو خلافين مركا اسكو وافقين ظاهر نصوص صفات إنو يهي تشبيه تمثيل غير مراد نو يهي waxay isku khilaafeen sidee baa haddaba nusuustii la odhanaya mulafiqadu waxay yidhaahdeen yani yucayin laha macnan macnaa loo cayimaya mufawidaduna maxay yidhaahdeen laa nucayinu laha macnan lan laa nudriku macnaha wainamaa nufawidu macnaha ila allah anagu macnaa u cayimi mayno waayo macnaheeda mama garanaynaba macnaha loola jeedo macnaheeda ilaahay baan subxaana watacaala u daynayna wallahu aclam bimacaaniha baynu odhanayna macnaha loola jeeda ilahay baa garanay waayo waxaa dhici karta macno kastoo aynu cayino mid aan ahayn in loola jeeda baa dhici karta bay ku leeyihin kulu macnan nucayinu lahu sifa fayumkin an yakuna almuraadu biha gayruhu macno kastoo aynu cayinaba waxaa suurtowda kii ilaahay uu ujeeday ama rasuulku ujeeday inaanu ahayn mid kale uu yahay ahlu sunna iyagu isma daalinayaan waxay leeyihin maxaa adiga yaa kuuba diray ba inaad macno u cayintaba macnaha waa daahiruha tafsiiruha waa tanziiluha sida maqaalaat salaf aynu insha allahu tacaala kusoo naqlin doono tafsiirkeedu waa ta'wiilkeeda ama qiraa'adeeda mujarad qiraa'atuha ayaa tafsiiruha oo dee macnaha waa maa dalla caleyh daahiruha maa yasbiqu minha ila alcaqli الsaliim العاarف باللغة aduu inaad macno u cayinto laguma dirinba waay waxa iyaduna muhima inaynu fahanno ila waynu sheegnay soo maaha inaanay jirin طaaئفة laha wujuud tatabana tafwiid koox markaa jirto oo halkaa u baxday oo madhabka tafwiidka markaa sheeganaysa oo le waa madhabuna fi baab alasmaa wasifaat watadcu ilayhi wataltazimu bihi oo isaga ku dhaqmaysa oo xaakim ka dhiganaysa fi hada albaab waxay noo hadhay waa maxay maadaama aynu nidhi tafwiidka sidiisa waxa sheega uun mutakalimiinta weliba mulafiqada mutaakhiriintooda ayaa sheega qaar naqdiya iyo qaar sax ku sheega iyo qaar meel dhexe istaaga marka masalada muhimka waxay tahay in ogaano mowqifa ahli اlkalaam ma huwa mowqifu ahli اlkalaam min maqaal tafwiid waliba ahlulkalaamka waxaynu si gaara halkan uga sii jeednaa almulafiqa oo maturiidiya ashcariya mowqifka ay tafwiidka ka istaageen waa maxay mowqifu aimati ahli الsuna min atafwiid isagu waa macluum waa inuu yahay madhab baila bal inuu yahay xagga dambe aynu ka arki doono sharu maqaalaati ahli اlbidac maqaalaadka ahlulbidacu ay ku hadleen ka u shar badan ba inuu yihi xataa maqaalat tawiil maqaalat tafwiid baa ka shar badan oo waxay uga shar badan tahay lawaasimta iyo waxyaabaha ka dhalanaya ayaa ka fool xun kana mafaasid badan kuwa maqaalatu taawiil ka dhalanaya waaye way iskhilaafeen qolooyinka ahlulkalaamku laysa lahum mowqifu muwaxadu min maqaalati tafwiid mowqif midaysan maqaalatu tafwiid ay ka istaageen ma jiro bal lahum halaaثu mawaaqif mukhtalifa saddex mowqif oo iskhilaafsan ayay tafwiidka ka istaageen almowqif alawal waxa weeye man yunkiru hadi اlmaqaala wayara anaha bidcaة munkara mutakalimiinta qaarkood yunkiruuna hadi maqaala aada bay u inkireen waxaanay aaminsayin inay tahay bidca munkara wayunkiruun nisbataha ila salaf waxaanay aada u diidaan in salafka loo nisbeeyo oo la yidhaahdo madhab salaf
في baabi الصفاaت waa التfwيid aad bay u diideen ومiن hؤuلاaءi بن fawrk الأشعري aad iyo aad buu maqaalada u tashniiciyey oo u radiyey oo u sheegay inay bidco tahay waxaanuu been ku sheegay in la idhaahdo madhab السلف wuxuu ahaa تfwيid waxaa ka mida saas oo kale alqushayri mowqifka labaad waa mowqifu man yatabanaaha wayactabiruhaa almadhab الصaxiix mowqifu man yatabanaaha mowqifka cidda sheegatayba ee diin ka dhigatay wayactabiruhaa almadhab الصaxiix fi baabi الصifaat ee u ictibaariyey maqaala tafwiid inay tahay madhabka saxdaaba marka la joogo fi baabi الصifaat ومنهم الجuwayني sidaynu horaba u ishaaray juwayni baa kuwaa ka mida كما في رسالته الرسالة النظامية الرسالة النظامية risaaladiisaas wuxuu ku taqriiriyey madhabka saxdi inuu yahay في baabi الصفاaت التfwيid madhab السلفna uu yahay mowqifka saddexaad waa man yujawiزha wayara anaha طariiqaة صaxiixa waa mid le waa banaan tahay wayara anaha طariiqaة صaxiixa liman araada suluukaha kii hore muxuu kaga duwan yahy duwayn wuxu waa madhabkii saxda ahaayoo haddii mid aan ahayn la qaato waa baaطil laakiin mowqifkan saddexaad wuxuu leeyahay taawiilkuna waa madhab saxa tafwiidkuna waa madhab saxa qofkii doonayaa yasluk maslak التaأwiil kii doonayaana yasluk maslak التafwiid saasuu leeyahy wa hada qowl jamaahiir الmutakalimiin min الأشcariyaةi وغayrihim waa qowlka jamaahiirtooda yani mucdamkooda iyo haalibkooda ay ku tegeen oo ah waxa weeyaan in maqaalo tafwiid ay tahay maqaala صaxiixa yumkin اlqowl biha wayajuusu الdihaabu ilayha si maqaalo saxa oo lagu tegi karo qofka doonaa uu caqiide ka dhigan karo fi baab الasmاء والصifaat وmin haؤuلاء allaqani صaaxibu jawhar التawxiid jawharada ashcariyada allaqani uu leeyahay waa nadmi kuwa sharaxayna waa jiraan sida baajuuri oo kale wuxuu odhanaya wakulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziha nas kasta oo tashbiih ku moodsiiya ظaahiruhu yahay atashbiih tashbiih اlkhaaliq biاlmakhluuq de waa nusuus sifaat badankeedii sooma toddobadii sifaat ulmacaani ay sugayeen nusuusta ku soo aroortay marka laga reebo nusuusta kale fii baabi sifaat kusoo aroortay dhammaanteed maxay odhanayaan ظaahiruhaa yuuhimu tashbiih daahirkeedu waa wuxuu ina fahamsiinaya oo laga fahmaya tashbiih marka maxaa la yeelaya awilhu macnaheedu yahay cayin lahu macna غayr اlmacna aladi dala calayhi ظaahiruhu u cayin adigu macne kii daahirkiisa uu tusiyey aan ahayn wa hada maa yacmaluuna bihi waana tahay ku camal falaan oo yad wej raxma xaba kalaam macnay u cayimayaan aw fawidhu waxa kalood ikhtiyaar u leedahay inaad taawiilka iska dayso macnaba aanad u cayimin aad tiraahdo ظaahiru qowli اllahi tacala bal yadahu mabsuutataan ظaahiru qowli اllahi tacaalى maa manacaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya waa غayru muraad waayo waa tamhiil iyo tashbiih ayb ma lmuraadu bihi macnaha loola jeeda waa maxay waxaa kuu fura inaad tiraahdo allahu aclam laa nadri wallahu aclam bima yuraadu bihi garan mayna anagu macnaha loola jeedo ilahay baa garanaya labaas waa kuu furay warum tanziha yana tanzihna doona inaad ilaahay ka nasahdo mumaahalat اlmakhluuqiin iyo alitisaaf biاlcuyuub والnaqaa'is marka tanzih in la raadiyo waa waajib subxaanahu wa tacaala cama yaqulu الظaalimuuna culuwa kabiira laakiin طariiqaة tanzih waa maxay
لا بد من سلوك طريق الوحي في تنزيه الله marka ilaahay laga nazahayo maalat almakhluuqiin iyo naqaayista iyo cuyuubta waa in arrintaasi loo maro wadada waxyiga imaha in loo maro طريق العقل كما فعل المتكلمون طيب جماهير المتكلمين كالأشعرية waxaynu nidhi يرون القول بالتفويض جائزا صحيحا وطريقا صحيحا لمن أراد سلوكه صومه لكن هل يجعلون التفويض والتأويل في مرتبة واحدة لابد من السنين؟ لا، أكثرهم يجعلون مقالة التفويض في رتبة أدنى من رتبة التأويل. هو أركان تهي مذهب بنان والصحة وقفكي دونا عقيدة وكذا ينكر، لكن وحا كالرتبية درجة سرية أكتودا تأويلك. مقالة إلى أهدان أشعرية مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكمنا تاسي كل سنتي، ومذهب السلف والتفويض بوليدي مركا هو أسلم، وباب أسماء الله وصفاته وباب خطير وحالسة ويدوا ور يا هذا الإلهي كصابسن marka in la iskaga gaabsado la raano garabo maynaba macnihiisaba saasay salaamadu ku jirta. madhab salaf fi afwad aslam saasay uga jeedaan. madhab salaf waa tafwiid kana aslama ina tiraanu garabo maayaba istawa الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى لا أدري لا يعلم معناه إلا الله، ويبقى وجه ربك ما معنى الوجه لا أدري وانت هتكون قابسته، ومن صمت نجا كيسكاها مساواة بدبادية قاعدة هتكون شقيسه. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. خلفku iyagu sidii salafka intay baqdeen iskamay oran la adriya Allahu a'lam, iyagu aqligooda ka shaqeysiyeen qawaacid kalaamiya bay dajiyeen oo cilmi ah oo baabkan ay ku baxthiyeen oo sifaadkii markaa ay macaani ugu cayimeen, isagaana axkamahoodee shayga meeshiisii dhigay halay ku habboonayd dhigay. وهذا باطل. بل مذهب السلف هذا الكلام حكم بنيسي مذهب السلف في نهاية تفويض بكم بنيسي تصيروا باطل مركز تاسي أي برتو. مذهب السلف إن علمي حكمة للديري هاي يدن ويل بريسة. بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. مذهب السلف بس سلامة كتيرته صد النصوص طبعا نوت المنطق خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. iyo nusuusta kale in amraysa salafka inaynu ku dayano maxaa laynoogu ammaanaya oo laynoo amraya inaynu iyaga ku dayano inaynu kaga dayano fi fahmi diin wa tatbiiqi fahamka diinta iyo dabiqisteeda. haddii madhabkoodu aanu cilmiga ku dhisnayn ee uu iska yahay madhabka waxa weeyaan cawaamu nnaas aladiina hum cala alfitra oo odhanaya anagu garan mayno allahu aclam, haddii ay saa jaahiliin uga yihiin macaani sifaat illaah oo baabkii ugu muhiimsanaa abwaabta diinta waxaa la leeyahay ku raaca waa maxay. marka halkaa maxay nooga muuqanaya takhabut alashcariya subxaan allah oo maraatibta madhabka ashcariyadu soo maray horeynu u sheegnay soo ma taasina waxay daliil u ahayd madhab xaqa inaanu ahayn mar haddii awaluhum wa aakhiruhum calaa ariiqa waaxida في باب صفات الله سبحانه وتعالى أنا أهين. هل كأهل السنة أولهم وآخرهم على طريقة واحدة أيين محامد مدي أهل السنة لأن مذهبهم قائم على الوحي. مذهب كود وحي وكقطمة، والوحي لا يتناقض ولا يختلف كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما مقالة الأشعرية فهي قائمة على العقل والكلام، والعقول مختلفة
والقواعد الكلامية متناقضة taana maxaa ka dhashay inay iyaga awalhum wa aakhiruhum ay kala madaahib noqdeen saas oo kale tanna way sii muujinaysa oo maxaa bal imika madhab idiina ma tafwiid ba madhab idiina mise ta'wiil ila waa laba kala duwane awilhu aw fawidhu labadiiba adigan la qofka labadu waa ku furan yihiin mid kalena wuxuu leeyahay ma waajibku oo duwayn oo kale waajibku waa tafwiidku oo ta'wiilku maba banaano xaraan wa aakhiru qawlihi mid kalena wuxuu leeyahay tafwiidka waajiba buu leeyahay duwayn mid kalena wuxuu leeyahay tafwiidku waa xaraan waa bid'a munkara shaniica oo la yajuusu nisbatuhu ila ash-shariica wala ila salaf al-umma shariicada loo nisbeeyo la yiraahdo waa qowl shariicada ku sugnaaday ama salaf al-umma in loo nisbeeyana waa xaraan ayuu la soo taagay keebuu raacaya haddaba qofka mubtadi'a ee doonaya inuu caqiido barto ay yuwaafiq ibn fawrak am yuwaafiq aljuwayni am yuwaafiq gayrahuma miman yaqul bijawaaz الtafwiid والتأwiil yataxayir sooma waa in warasta kuwa horeba u wareereen laqad tuftu lmacaahida kulaha unbaa ka dambaysa si shahrastani uu yihi meel walba soo marayo tafwiid wax dhaamo waaye ayib marka maqaalatu tafwiid waxay leedahay shubahaad dee sheekhu maadaama shubahaadkooda kamid a halkan uu ku sheegay waxay taasi ii baahisay inaan horta bal muqadimadaa sheego ila qolada shubahadooda aad ka jawaabaysa waxay yihiin waa inaad fahamto sooma iyo dee madhabkooda iyo macnihiisa iyo usuushiisa iyo waa inaad fahamto wey shubahaadkooda u waawe waxaa kamid ah aayaddan qur-aanka ee lagu sheegay qur-aanku inuu uqeybsamo muxkam iyo mutashaabih fain qulta haddaad tidhaha bu uri sheekhu mal jawaab waa maxay jawaab can qowlihi tacaala laga jawaabo qowlka ilaahay uu yihi huwa ilaahay aladii kiween anzala soo dejiyey caleyka dushaada kusoo dejiyey nebi maxamedow alkitaaba qur-aanka minhu waxaa kamid a aayaatun baa kamid oo muxkamaatun oo muxkam ah hunna kuwa muxkamka ahi umulkitaabi asalka kitaabka weeye inta kale ay u noqonayso wa ukharu iyo kuwo kaloo mutashaabihaatuna mutashaabiha faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim quluubtooda uu ku sugan yahay zayqun lumitaan fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii mutashaabiha ee minhu qur-aanka ka mida ibtiqaaءa alfitna fitna raadin awgeed bay u raacayaan ibtiqaaءa taawiilihi iyo tafsiir aan kiisii ahayn inay ku fasiraan almuraad bالtaawiil huna tafsiiruhu bima yukhaalifu ظaahirahu wamaa yaclamu garan maayo taawiilahu tafsiirkiisana ila allahu ilaahay mooyaane halkaa in lagu joojiyo waa la yidhi oo hadal bilaabmaya laga dhigo waraasikuunadaas oo la idhaahdo waraasikuunana kuwii u dhaadhacay fi lcilmi cilmiga yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihaas kullu mid kasta oo min almutashaabihi wاlmuxkami min cindi rabbina rabbiga xaggiibuu ka ahaaday marka araasikuuna fi lcilmi garan maayaan mutashaabiha taawiilkiisa maxay odhanayaan garan mayne laakiin waan rumaynay bay odhanayaan maadaama xagga ilahay uu ka yimi qowla kalena muxuu odhanaya wamaa yaclamu taawiilahu tafsiirkiisa garan maayo ila allahu ilaahay mooyaane iyo waraasikuuna mooyaane oo raasikuuna way garanayaan tafsiirkiisa wamaa yadakaru ma waantoobo ila ulu lalbaab cuquusha markaa bad qabta kuwa u saaxiibka mooyaane faina hada kani yaqtadii wuxuu keensanayaa ana fi lqur'aani qur-aanka inay ku jiraan aayaatin aayaat mutashaabihaat aayaadkaasoo laa yaclamu aanu garanayn taawiilahuna tafsiirkooda ila allah ilaahay mooyaane cid kale aanay garanahayn marka aayaddan waxay u daliishanayaan aayaadka sifaatka ilaahay ka waramaya inay yihiin mutashaabih oo shubhadan hadihi shubha mabniyat calى aslayn wanatiija
shubhadan waxay ku dhisan tahay laba asal iyo natiijo ka dhalanaysa labada asal. الأصل الأول الذي تنبني عليه هذه الشبهة ومحي المتشابه، وإن لرادو ما نصوص صفات من المتشابه ورتين لرا نصوص الصفات من المتشابه الدلة صفات كإلهي كورميسا ومتشابه تاسي ورتا أصل كدغان مقرر عنده. الأصل الثاني نوع محي المتشابه لا يعلمه إلا الله. المتشابه لا يعلم معناه إلا الله. متشابه معنيس إلهي مويانا عد كلا قرار ميسو. والنتيجة نمركا ومحي مركا لبدا مقدمة للصور أصول الصفات ومن المتشابه، والمتشابه لا يعلم معناه إلا الله. نتيجة محي نقرسها نصوص الصفات لا يعلم معناها إلا الله. مرة دي نصوص صفات أي تاي متشابه أنا معنيس إلهي وعد كلا قرانا هين دي نصوص صفات معنوه إلهي وبا قرانا، وهذا هو التفويض. إلا رأى أنه معنى إيه التفسير وما قرانيناه إلهي بان وفوضينا أين وديرنا معنيه والتفويضك ساسي مركا عيد ودي للشديد. طيب مركا الشبهات النوع عاصل نقدنيه مقدمات كاي الشبهات كقمتي مركا هو إن لا نقضيه لبوريه مركا سي مباشرة اوتوماتيك كلا أي نتيجة ودوميسه وإنهيار إيو قبل دعوه وقدعيه. وحن لنا هي قولك الذي نصوص صفات ومن المتشابه وغير صحيح. يقعد المتشابه وقد شيء ما لا يعلم معناه إلا الله يقعد قد شيء ساكو فسرين. وحانا تاتو السنية علماء مركي آيادا فسريان أقوال بي سلف كسوران في تفسيرها. ابن جرير الطبري شن قول أيو سلف كي أئمة كسور نقلي وآيادا تفسير كيدا أي كيد هدين. ابن الجوزي كتاب كيسا زاد المصير التفسير كا تضبط قول بكسور نقلي. وليس في هذه الأقوال المنقولة عن السلف قول يذكر أن آيات الصفات من المتشابه. شنتا قول ابن جرير الشاقية تضبطها وابن الجوزي الشاقي كما تشير قول قرى وأرانية آيات الصفات وحي كميد المتشابهة معنيس إلى ما يعد كلام القرنين. إذن آيات الصفات إن يتم من المتشابه ده هو قول كيني، لكن معها قول كي سلفك آيادا فسري. وهذا يدل على أن آيات الصفات غير داخلة في المتشابه. متشابه يفسرين كما يدرين آيات الصفات تصنع تسنس آيات الصفات إن أنا كم يدهين متشابهة marka looga jeedo mutashabiha ka macnihiisa ilaahay mooyaan cid kale aan garanayn. waxa kale oo taaburinaya أن أئمة السلف فسروا عددا من الصفات إجمالا وتفصيلا. أئمة السلف إن آياتنا معنيد وهين آيات الصفات ومتشابه ومعنيسه معنى إلهي موعد كلا قرن ميسو وعطسنا إن أئمة السلف أي صفات كفسرين ومعنى وشيئا تصالي الله ونكسو قاندنا قارنا هورين وصومرين صفة الاستواء ابن عباس ونفسرين وشيئا مجاهد ونفسرين وشيئا ربيعة الرأي تابعي هذا الشيخ إمام مالك رحمه الله تعالى غير واحد من الأئمة سفيان أقواله ونشيق دون إن شاء الله. مقدمة اللباد وحويان المتشابه لا يعلمه إلا الله تشابه معنيس إلى من عدك القرار ما يسو إيادنا ومقدمة باطلة. وإماذا حتى صدا كفسري أيري متشابه هو ما لا يعلم معناه إلا الله ما يقولن
tusaalayaashiisa waxaa ka mida sifaatka ilaahay ee waxay yidhaahdeen almaqsuudu bilmutashaabih huna xaqaa'iq alashyaa weye laa macaaniiha mutashaabih halkan loogama jeedo macnaha waxaa looga jeeda xaqiiqada iyo kayfiyada ومثلا صفات الله من جهة الكيفية ومتشابه ولا يعلم معناه أو لا يعلمه إلا الله كيفية صفات إلهي ما يعدك لقرار ميسو كيفية وحقيقة دا صفات وكذلك حقائق ما في الآخرة لا يعلمه إلا الله كصفات إلهي معناه دي ولا قررها لكن حقيقة دي وكيفية دا إلهي ويقانا ما في الآخرة ومن نعيم في الجنة معنيه سواء قرارها وخمر لبن ماء عسل فواكه لحم طير قصور حور عين معنيه سواء قرارها لكن كيفية دي إله ما قرارها وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كمتشابهة إلهي وقرنيه waxay ku fasireen aimada aayada fasiray حقائق الأشياء وكيفيته حقائق الأمور الغائبة عنا الرماها إنك مقانا نوع موقن حقيقته وكيفيته ده كيفية صفات الله هي كيفية ما في الآخرة ولم يقل أحد منهم إن إدراك المعنى يدخل في المتشابه ومتشابها إلهي ويعد كلام وقرنين معناها لوجت شيء ده أحد منهم أورد سؤال شكل واحد تاني لا يراضو معاني صفات الله نبي مقرني هذا النبي مقرني هين معاني هذا محنا قنية نبي عليه الصلاة والسلام بقولال آيات يبقولال حديث وصفات كقصاب صنبو ومد واخري مركا وحانو يساقوا بفهم سنين ونقرني مدتك واخرني وقول الشريعة صمع هذا يراضان نبي معاني صفات الله وقرني هنا ده قول كود وبري بطل قوله الإله ما قرنا يبي لها المعاني صفات وعدك القرار ما يصير واي وحول الشيخ قلنا وحي نري الجواب قلنا وحي نرى الجواب جواب تعوي أن قولين لما قول بال للسلف والسجن في الوقف وقفك يعني هلك لقوا يستاجي في هذه الآيات نحيد حاله وكتشره وآياتنا هلك لقوا يستاجيها waxay naga caawinaysaa inaynu mutashaabbiha macnihiisa almuraad bi inaynu fahno axaduhuma alwaqf waa in la istaago cinda qowlihi ila allah wama yaclamu ta'wiilahu ila allah mutashaabbiha tafsiirkiisa ilaah unbaa garanaya wa huwa qowlu jumhuuri salaf weeye walkhalaf jamaahiirtu waa siday ku tegeen وعلى هذا تامرك waxa lagu dhisay yakun wuxuu noqonayaa almuraad bitaawiil taawiilka la yiri ilaahay ma cid kala garan mayso waxa loola jeedaa maaha macnaha ee waa maxay waa xaqiiqatu shay oo ah kayfiyatu fi qawli wama ya'lamu ta'wiilahu illa Allah alxaqiiqa buu noqonayaa la taasoo yaul kalaam hadalku uu noqonayo ilaahay xageeda la tafsiirkii loogama jeedo alladii tafsiirkaas oo isagu bayaan macnaha المعني العدي وما يعلم تأويله إلا الله هل كان دي لغو يستاغو صين هربا ورشاقني تأويل كام عني سماها تفسير كي معناه إيوامح إيوا حقيقة إيو كيفية تفسير كي معني ولا قراني هذه صفات كي إلهي لقاد ليو يهدي لقاد ليو ما أخبر الله عنه في الآخرة وإلهي كور رمايا آخريا لكن تأويل كي سأل قراني إيوامحي وحقيقته وكنه وكيفية سيقاب كيس وانا الساي السلف كو فسرين آيات وانا نريد ما تشرح من السلف او يري وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تفسيره ومعناه إلا الله يدو لو تشيدو صفات كإلهي هي ما في الآخر فتأويل آيات الصفات آيات كصفات كورمية تأويل كل على هذا marka waqfigan wax lagu dhiso huwa isagu xaqiiqada tilka sifaat way sifaat ka xaqiiqadooda iyo kuniha وهذا كريم من الأمور بكمية الغيبية يعني كيفية يكون
alatii taasoo laa yudrikuhaa aanu garan karin alcaqlu walam yarid bi aanu lana soo aroorin asamcu falaa yaclamuha garan maayo ila allah wamaa yaclamu taawiilahu ay xaqiiqatahu wa kayfiyatahu ila allah waayo الثاني qowlka labaad waqfiga laga yihi waa alwasl waa in la xidhiiriyo falaa yaqifuuna calى qowli ila اllah waxa weye inta ka dambaysa ku xidhan wamaa yaclamu taawiilahu ila اllah wاraasikuuna fi اlcilm wahuwa qowlu jamacati min الslf wاlkhalf cabdillahi bn cabaas baa ka mida se uu sheegi doono sheekhu wabinaan calayhi marka kaa wax lagu dhiso yakun wuxuu noqonaya almuraad bitaawiil fii qowlihi wamaa yaclamu taawiilahu ila اllah wاraasikuuna fi اlcilm atafsiira buu noqonaya taawiilka macnihiisu alladii tafsiirkaasoo isagu bayaan lmacna ah oo ilaahay baa garanaya alraasikuuna fi lcilmina way garanayaan wa hada kani macluumu waa mid macluuma liraasikiina fi lcilm kama qaala ibnu cabaas radi allahu canhuma ana min alraasikiin aladiina yaclamuuna taawiilahu tafsiirahu wa macnaahu marka laba qowl buu ku leeyahay ibnu cabaas taawiilka macnihiisa iyo waqfigaba waqaala mujaahidu caradtu lmusxaf musxafkan u bandhiga cala bni cabaas min faatixati laga bilaabo faatixadiisa bilowgiisa ilaa khaatimati ilaa gebagabadiisa aqifu waan joojinaya cinda kuli aayatin wa asalu waan weydiinaya can tafsiiriha meele ibnu cabaas uu ku yihi ka bood ilaah unbaa yaqaana ee xataa culimo ma yaqaanaane ma jirto meele uu yihi mujaahid halkaa ma weydiin waayo mama fasiri karaba ibnu cabaasoo cid taqaanaaba ma jirtana ma jirto ibnu cabaasna waa kii qur-aanka maruu ka hadlayay afar buu u qeybiyey miday carabi garanayso luqadeeda ay ku garanayso qof kastoo carabiya ayaa garanaya iyo mid waxa weeyaan ay garanayaan ahlu tafsiir araasikuun fi lcilmi ay garanayaan iyo mid ilaahay subxana watacaala mooyaane cid kale aanay aqoon wabihada arrinkaa ayaa tabayana uu ku cadaaday ana alaayata ayaddu laa tadul inaana tusinahayn calى ana shay-an shay shaygaasoo laa yaclamu aanu garayn macnaahu macnihiisa ila allahu ilaahay mooyaane fi lqur'aani qur-aanka inuu ku jiro shay luqada macna ku leh waxaan saa u leeyahy de waxa lagugu soo aroorin karaa alxuruuf almuqaطaca fi awaa'il الsuwar waxaad odhan kartaa dee waxaa loo jeedaa marka la leeyahy laysa fi lqur'aani shayun laa yaclamu macnaahu ila allah maa lahu macnan fi luga jawaabo kalena waa jiraan insha allah xagga dambe aynu ku sheegi shubahaadka mufawidada markaynu ka jawaabayno wainamaa tadul waxay tusinaysaa un aayaddu calaa ana fi lqur'aani qur-aanka inuu ku jiro shay-an oo laa yaclamu aanu garanayn xaqiiqatahu xaqiiqadiisa wakunahu kayfiyadiisa ila allahu ilaahay mooyaane calaa qira'ati lwaqf qiraa'ada waqfiga lafduljalaala in lagu istaago tilmaamaysa marka wax lagu dhiso watadul waxay tusinaysaa calaa ana araasikiina fi lcilmi yaclamuuna inay garanayaan macna almutashaabih alladii kaasoo yakfaa ka qarsoomaya calaa kaiiri min annaas calaa qira'ati lwasli marka wax lagu dhiso qiraada xidhiidhinaysa odhanaysa wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilm wacalaa hada taa marka wax lagu dhiso falaa tacaaruda iska hor imaansho maca maa dakarnaahu waxaynu sheegnay maciisa ma ahaan maca anahu laysa fi lqur'aan iyadoo qur-aanka maca anahu laysa fi lqur'aan wacalaa hada falaa tacaaruda tacaarud maca maa dakarnaahu waxaynu sheegnay maciisa maca anahu laysa fi lqur'aan iyo qur-aanka inaanu ku jirin shayun shay walaa yuclamu macnaahu macnihiisa aan la garanahayn labadaasi tacaarud uma dhaxeeyo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed